kulanka wada tashiga bulshada iyo maamulka degmada Hodan ayaa lagu qabtay xarunta degmada waxaana ka soo qayb galay odayaal waxgarad aqoon-yahano dhaqaatiir haweenka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. Kulanka ayaa waxaa diiradda lagu saaray xoojinta amniga, la dagaalanka maandooriyaha, bilicda iyo ilaalinta deegaanka. Qaar ka mid ah mas'uuliyiintii iyo bulshadii kulanka ka hadashay ayaa ku dheeraaday in laga wada shaqeeyo amniga iyo ilaalinta deegaanka. shacabkeena aan ka hadno waxyaabaha ay nagu hogaaminayaan aan ka hadno kaligiis wax ma dhaqi karo. degmada marka isugu dhafka ugu badan dalkan ayaa gudoomiye ka noqotay adiga iyo maamulkaaga waan ku hambalyeynaa. marka waxaan soo jeedinayaa arrinta ugu weyn waxa weeye dardargelinta bulshada caafimaadka qaybaha kala duwan ee la xiriira arrimaha nadaafadda. marka taasna waa maaragtay waa ka afeefanaynaa. waad shaqayday waa la shaqeeyay amnigu waa shaqeeyay sii kordhiya haddaana tabeella horseed wax ku malish marka meel wax la sameeyay annaga ah geedihii intii aan waagi hore aan qabnay oo la gooyay marka ay geed talaashaan isbishal dadkan ganacsatada saraadha dheer dhisayeen waxaan la shaqadiisa in lagu la xisaabtamo si uu wax fiican u qabto bulshadana wax uu soo kordhiyo. bulshaweynta degmada Hodan bilicda iyo quruxda maanta jirto ilaahay ka soo dhawo waxaan mahad celinaynaa gudoomiyaheena degmada haddaana qurux jirin waxa waay bilicdaan maanta amni la'aan ma imaateen oo haday iska wax u qabso ahaan lahayd haddaan nadaafadda ahaan lahayd haddii amniga xaqiisa ahaan lahayd waan kala shaqeynaa. bulshooy maanta wax kale halkaan looma joogo in waxyaabaha horumarka degmada aan sameynay waxyaabaha noo dhiman ay noo sheegi kartaan kolley afkiina dadaad maanta soo wakiilateen waddankana mas'uuliyiin ka nahay khaasatan Hirshabeelle horena waxaan uga ahayn magaalada waxaan hadda idin sheegayaa marka degmadan aydoon matqaana la maaneynin runta laga hadlayo sidoo gudoomiyaha Cali Faal u qabtay isbedel weyn ayaa ka muuqata. gudoomiyaha degmada Hodan ee gobolka Banaadir Cali Fahle oo soo xiray kulanka ayaa ballan qaaday inuu wax ka qaban doono cabashada bulshada degan degmada Hodan. talgalkaygu wuxuu yahay laami in lagu xiro interlog lagu xiro si aan qofka ugu baahan waxa soo haray waxaan halka inaan digrin uga diro meelaha wadooyinka ka xiran yihiin ee aan ammaanku xirin taliyii nabadsuuda ay maqlaan galabta waxaa jira meelo hoteelo ah oo degmadan ku yaala oo maqaayado ah oo ciid taalo cagaftii waa haysataan biro uguma xirnaa karaan ummadan inay isu socotaa la rabaa kuwa hadda magaalada dhex yaallaa la qaadaa ma qaadan karno qof shakhsi oo maqaayad iibtaa leh oo hotel ku leh ama guri leh ammaan sugan inuu dhagax ciid ummadda ka soo xirto. Cabdullaahi Maxamed, Jubbaland TV, Muqdisho.